inta taariikhda la joogo waxaa dunidu soo martay dagaalo ba'an oo socday boqolaal sano sida dagaalkii jasiiradda Iberian oo socday in ka badan 780 sano iyo dagaalkii Ruushka kaasoo socday 101 sano balse ma maqashay weligaa dagaalkii ugu gaabanaa taariikhda kaasoo socday 40 daqiiqo muuqaalkeena maanta waxaan kuugu sheegi doonaa dagaal socday muddo gaaban ku soo biir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay bishii November 4 1890 Ingiriiska ayaa wuxuu ku dhawaaqay suldaanada Zanzibar inkastoo Jarmalka iyo Ingiriisku ay ku heshiiyeen in ay kala qaybiyaan quwadihii bariga Afrika Ingiriiska waxaa loo dhiibay Zanzibar halka Jarmalkuna loo ogolaaday in uu maamulo dhulweynaha Tanzania sida laga soo xigtay goobta taariikhiga ee Ingiriiska geeridii Suldaan Xamuud kadib amiirkii Zanzibar in uu isku soo sharxay Khalid bin Barkash wuxuuna ku dhawaaqay in uu yahay amiirka jasiiradda isagoo iska diiday gumeysigii Ingiriiska dabayaaqadii qarnigii 19aad Ingiriiska waxa uu balaariyay saameyntiisa ku aadan guud ahaan bariga Afrika gaar ahaan Zanzibar dhamaadkii Agoosto Khalid waxa uu amaanay ciidankiisa isagoo go'aansaday inuu iska dhiciyo quwaddii weyneed ee Ingiriiska walow ay ahaayeen 3,000 oo askari ah nasiib daro waxaa cad in ciidamadani iyo qalabkani aadka u yar aysan awoodin inay iska caabiyaan ciidamada Ingiriiska ayaa u soo diray fariin amiirkii Zanzibar isagoo u qabtay muddo 2 maalmood si uu ugu baxo qasriga uuna isugu soo dhiibo askartii Ingiriiska laakiin amiirkii Khalid ayaa iska dhiga tiray kuna adkaystay go'aankiisa inkasta oo ay rasaas soo rideen askartii amiirka haddana boqortooyada iyo qasriguba waa la qabsaday daqiiqado yar kadib Ingiriisku waxa uu 40 daqiiqo ku qabsaday qasrigii isagoo laayay ugu yaraan 500 oo askari ah halka Britain laga dhaawacay ciidamadii lugta ahaa ee Ingiriiska ayaa la wareegay gacan ku haynta jasiiradda halka Suldaan Khalid askartiisa ay isu soo dhiibeen sidaasna ay ku soo afjareen dagaalkii ugu gaabnaa taariikhda soo mara